adigoo Hargeysa jooga haddii aad isku hadasho waxaad mutaysan doontaa xabsi aan loo meeldayin oo weliba aad si degdeg ah ku galayso. Maamulka Muuse Biixi Cabdi waa maamul guracan oo digtaatoriyadda ay madax martay. Waa xagjir nacab Soomaalinimada iyo xaqiiqada. Gabadhan aad arkaysaan oo Ogbaad la dhaho caawayto waxay liinta ku cabaysaa xabsiga weyn ee Hargeysa. Weliba dadka qaar waxay leeyihiin lama xaqiijin karo meesha dhabta ay ku xiran tahay. Shacabka ayaa isku soo banaan baxay ayaga oo sheegay haddii hal saac ka bacdi ay sii xirnaato in ay madaxtooyada ay geli doonaan shacabka oo isku xiran. Muuse Biixi Cabdi waa caadadiisa, ceebtiisa ma ahan inuu xiraa qof kasta oo ra'yigiisa ka hadlo. Waxaad ogtihiin Cabdimaalig Muuse Coldoon oo xaq ka hadlay 2 jeer in ka badan in ay xireen maamulka Muuse Biixi Cabdi. Gabadhan oo caawa sheegtay hees ku celisa intay soo saartay Facebook-keeda maantayto lafti nagaa hanoo dhiibin oo Sharma Boy horey u qaaday ayay caawa xabsiga liinta ugu cabaysaa. Waxaan rabaa inaan u sheego shacabweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaanbo qofna ha uga aabayeelino ra'yigiina in aad cabirtaan xaqana aad ka hadashaan. Gabadhan waxay mudan tahay taageero weyn in loo muujiyo. Lafti nagaa hanoo dhiibin. Qof kasta oo Hargeysa jooga waa inuu ku celceliyaa si maamulka guracan meesha uu uga baxo oo xaqiiqadana ay u rumowdo.